السلام عليكم walaalka sharafta leh haddii aad u baahan tahay barashada luqadda Turkishka diyaar ayaan kula nahay fadlan koorta waxa jirto muddo 8 bil soconayso oo dhinac kasta ka dhisayso haddaba hadaahin fariin noogu soo dir bismillah alhamdulillah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkani waa iskuulka online-ka ee shaqoonta walaalaha sharafta inaga mudan waxaan idin haynaa koorso dhameystiran aad ku baran kartaan luqadda Turkiga waxaan idin diyaarinay 10 maqal iyo muuqaal ah oo markaas idinka dhisayo dhinacyo kala duwan waa 10 manhaj leh oo markaas tayaysan waxaan aqrinayaa dirtaan qayb yar oo ka mid ah buugga afraad ee luqadda Turkiga oo kuma akhri allama fahan waxa sheekaysanayo Tariq Bey iyo Salim Bey ashaydaki dialogu wada sheekaysiga hoose oo ku Yunus aqriya title-ka ama ciwaanka ayaa wuxuu yahay Salim Beyin yani evi guriga cusub ee Salim waxa sheekaysanayo Tariq Bey iyo Salim Bey Bey hadad maqasho waa mudane Tariqna waa magac Salimna waa magac Tariq Bey wuxuu yiri mudane Tariq Salim Bey mudane Salimow sizi adiga uzun zamandan beri lama mudafuk gurami rum kuma arko Salim Bey wuxuu yiri yani bir f guri cusub satın aldım ayaan iibsaday taşındım markaas ayaan u guuray Tariq Bey wuxuu yiri neden sabab taşındınız aad u guurtay casharkan oo dhameystiran waxaad ka heli kartaa koorsada fadlan haddii aad danaynayso barashada luqadda Turkishka aad baan ku soo dhaweynaynaa waliba qiimo aad u jaban oo macquul ah oo markaas iska bixin kartid soo dhawow walaal soo dhawow waxaan jecelnahay in aad baratid luqadan si ay kaaga caawiso waxbarashada aad ugu tagi lahayd dalkaasi Turkiga iyo markaas haddii lacala xataa dalxiis iyo maalin joog baa u tagi lahayd ku soo dhawow iskuulka iyo janalka isha aqoonta anigana waa macallin Cabdiqaadir walaal sidoo kale waxaad heli kartaa barashada luqadda Hindiga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكورسada lagu baranayo luqadda Hindiga casharkiisii alfabeetada hore waxaan u soo qaadanay iswaar macnaha waxa laga wadaa shaqalada luqadda Hindiga koorsada luqadda Ingiriiska waad heli kartaa walaal Rahma ayaa waxay tiri if hadii you adiga don't mind me aadan i dhibsanaynin asking ina wax ku weydiiyo how old are you imisa sano ayaa jirtaa Zainab waxay ugu jawaabtay I am anigu waxaan ahay 25 years old 25 sano jir ayaan ahay how about you adna iska waran